daawadayaal halkan waa Samakeen Films waxaad ku soo dhawaataan qaybtii afaraad ee qisadii la magac baxday Silac iyo Saxariir Jacayl. Qaybtii hore waxa ay noo joogtay sheekadii bilowga iyo dhammaan la'aanta ahayd oo ay wadaagi jireen iyadoo aan waliba la isku caajisay. Daaya hadda salaantii xitaa waa la kala goostay. Qaybta afaraad ee qisada waxay ku bilaaban doontaa sidan soo socota. inanta intaa waxa uu dheereed xilligii uu soo hoyn jiray waqti ayuu ku daray. balse Layla kama aysan suulin dabeecadeedii ahayd in ay sugto ilaa uu ka soo hooyanayo iyaduna lama aysan hadli jirin laakiin uu ku taalada jacayl waxay ahayd mid ayada dhinaceeda ah wixii uu waqtiga isguraba xaalku uu sii adkaaday oo Layla way ahaan kari weyday kaligeed maalin ayay isdhiirigelisay Cumarna ay u yeedhay waxayna weydiisay sababta ku kaliftay iyagoo hoy qura ku wada nool misana ah lamaane xiriir jacayl oo qoto dheer uu ka dhaxeeyo sababta keentay in ay u dhaqmaan sida laba qofood oo aanan is aqoonin oo kale isna garab maraan Cumar ayaa yiri abaayo sidan ayay dantu ku jirtaa waayo anigu 4 sano ayaan waxbarasho ku maqnaanayaa adigana haddaad sidan ku sii socoto oo aad goor walbo xiriirteeda fadhido berri waa kugu dhib inaad kaligaa noolaato sidoo kale anigu waxaan ahay wiil dulsaar ah oo hooyo iyo aabba lama nooli wiilkii Yaasiin ahna waxaan ahay ilmo adeero oo quran isaga ayaana igu soo dadaalay haddana diyaar u ah in uu waxbarasho ii diro mar dhow mana awoodo inaan iraahdo inantan ayaan jeclahay ee ii dhis oo aan guursado hadiiba ay dhacdana aniga iyo adigaba nooma roona waayo bani aadam gacantiisa kuma baahi tirto adigoo meel cidla ah taaganna waxba ma dhaanto aniguna waxaan kula rabaa nolol fiican oo raaxo leh iyo in aan gacanteeda kugu maamulo abaayo aniga adiga ayaan kuu maqanahay ogow Layla jawaabta Cumar uma aysan cuntamin oo kuma qanacsana waxayna ku tiri awalba Soomaalida ogeyn inaad tahay arday oo aan waliba hooyadii iyo aabihii aan la noolayn maxaa dantaada u ogaan weeyay Cumar ayaa yiri markaas jacayl ayaa iga tambadiyay oo i waalay talaabada aan qaadayo sax iyo qalad waxa ay tahana maba ogeyn gacal xadaaf ayaan ku jeclaa Layla intay si kulul u fiirisay ayay ku tiri xadaaf ayaan ku jeclaa oo hadda ima jeclid miya Cumar oo xaaladda dejinaya ayaa yiri maya abaayo sidaad moodid maaha ee ifahan iyo hadallo uu ku dejinayo waa qof iyo maalintii 3 maalin ilinka qolkeeda ma aysan soo dhaafin Laylo oo xanuun aan heybtiisa la aqoon ayaa soo xaadiray halkaas markay sheekadu joogto Layla waxa ay dib u milicsatay erayadan jacayl oo ay qalbigeeda ku degsanayso qof jacayl dugaashaday naftiisa dagaalo duhur iyo habeenimo doodi ay dhex taalaa qarsan maayo doogtood sariirta iskuma duubee dantu waxay ku qasabtaa dawadiisa meeshii uu ka daani karayo degdeg inuu ku raadshay anna dihashadeediyo dulucdeedu waxay tahay inaan kow dadnimadiyo dabcigaa ilaahay kuugu deeqay adigee damacaygu raaco u daadagay qalbiga ee adoon ii darnaanayn jawaab aan ku diirsado degdeg iigu soo celi hagaag intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa qaybtii afraad ee qisadii Silac iyo Saxariir Jacayl waana inoo qaybta xigta fadlan page-ka Samakeen Films like saar asxaabtaadana u sheeg muuqaalka si taageerayaal fara badan oo u helo mahadsanid